ciidamada daraawiishta Puntland waxay 24 saac ee ugu dambeysay ka gaareen guulo waaweyn oo la taaban karo dagaalkii bilooyinka qaatay ee buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari ay kula galeen kooxda argagixisada dhigmiiratada ee Daesh kuwaasi oo ka soo horjeeday nabadda nolosha iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed waxaana dagaaladan ugu dambeeyay oo ka dhacay Toga Miiraale oo ahay taliskii ugu weynaa ee kooxda argagixisada uu gacanta u galay ciidamada geesiyaasha ee Puntland kuwaasi oo harsi iyo chiefba u diiday kooxdan jihalawayaasha kana weeraray cir iyo dhul intaba sidoo kalena cagta mariyay talisyadii iyo dhufaysyadii ugu dambeeyay ee ay nafta bideen saraakiisha kala duwan ee howlgalkan hogaaminaysay ayaana cadeeyay in Miiraale ahayd gabagabadii wajigii saddexaad ee howlgalkii Hilaac Daeshna ay noqdeen wax la dilay iyo wax firxadkoodii ugu dambeeyay lagu daba jiro Miiraalana ahaa saldhigoodii ugu dambeeyay waxaan gacanta ku dhignay taliskii ugu dambeeyay ee argagixisada oo ku sugnaa eelka Miiraale sidaa darteed waxaan maanta soo gabagabaynay wajigii saddexaad ee howlgalka Hilaac waanu indhoweedba ka wadnay buuraha Calmiskaad ee argagixisadu ay ku dhawaalaysan jirtay waxaa halkaa ka cad inaysan jirin argagixiso saldhig ay leedahay oo ku sugan Puntland ku sugan Calmiskaad soonihi ay ku dhuman jireen dhammaan haddii ay tahay dariiq wax mari jireen iyo haddii ay tahay saldhig ay lahaayeen awood ay lahaayeen meel ay god ay wax dhigteen meel ay u taalay ama meel ay mari jireen ama meel maartay ay ku dhuman jireenba dhammaan soo gabagabaynay guul baa naga soo raacday awalna hore waa nooga soo raaci jirtay insha Allah inta ay Daesh ay wadanka iyaga joogto waxa weeye habeen iyo maalin inaanu daba gallo meel allaale meesha tagaan aan uga daba tagno waana ku sii socon doonaa ilaa inta Daesh laga waayo doona hadii Allah idmo mahad Ilaahay bay u sugnaatay kasokow ciidanka difaaca Puntland oo runtii ahaa waxa weeye lafdhabarka halganka oo mar walba waxa weeye uu taagnaa si ay u soo afsiri lahaayeen aysan uga daali lahayn inay la dagaalamaan kooxaha khawaarijta hadda waxa gacanta ku haynaa waxa weeye meedadkoodii qayb kamid ah oo buuraha naga sareeyay yaala waxa kale oo jira talisye laga burburiyay waxa kale oo jira ceelashii iyo meelaha haysteen oo dhagaxan ay ku awdeen iyagana aan furnay waxa weeye aan dib waxa weeye aan rabnay dadka shacabka inay uga cabaanay hadii Ilaahay nafta noo daayo waana sii dib joognaa Miiraale waxa ay taliskii ugu dambeeyay ee ay ku lahayd kooxdan argagixisada ee Daesh buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari iyada ayaana noqotay gabagabadii barta soo afjarka guuldarrada khawaarijta iyo casharkii dagaal ee ugu dambeeyay oo ay qaataan Daeshtii ku sugnayd buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe.